السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي هلا soo dhawaada maanta waxaynu halay ka soo wadi doonaa cashirkeenii cusba ee ku saabsanaa money and finance baan halkeeni kasii wadanaa marka ereyo badan halkan waan kusoo qaadanay hadda maanta waxaan qaadan doonaa todoba erey oo iyaguna la xidhiidha lacagta iyo weliba maxaa la yidhaahdaa financiga marka waxaa ka mid ah ereyadan expenses save up iyo passive income pay off allocation revenue marka waan midmid baan u qaadan doonaa insha allah tacaala marka ta koobaad waxa weeye expenses waxaa la yidhahdaa kharashaadka qofku uu bixiyo wax loogu talagalay ayaa la yidhahdaa expenses kharashaadyo weeye marka halkan waa jamac marka kharashaadyo bay noqonaysaa marka expenses kharashaadyada marka expense waa maxay is the operational cost that is paid to earn business revenues yani expense is the operational cost waa lacag loogu talagalay operational yani hawl lagu qabto that is paid to earn taasoo loo bixiyay in lagu kasbado business revenue yani dakhli ganacsi in lagu helo waxyaabaha loogu talagalay ee loogu bixinayo mawduuca waxa lagu bixinayo baa la yidhaahdaa kharashaadka la bixiyo way tusaale marka tusaalaha waxa weeye book into the best hotel you can find and hang the expense waxay book into the best hotel you can find and hang the expense waxa weeye no book ama inoo qabo ama inoo soo raadi way hotelka ugu fiican and hang the expenses ku deji marka qiimaha yani kharashaadka ku deji kharashaadka kale laga dejiyo marka guriga cusub yahay ama la helo albaabka laga dejiyaa ama hortiisa board lagu dejiyaa ama waa lagu qoraa wax saas oo kale marka hang sud marka way ama ku dejita expense kharashaadka guriga macnaha waxa ku baxaya macnaha ku deji way talabaad we are leaving for a tour and all expenses are on to us yani waxaan u baxaynaa dalxiis tour waxaa dalxiis tamashliin yaro kooban way dabeetana all expenses are on to us dhammaan kharashaadkuna waa mid dushayada yaala yani mid dushayada marka expense waa kharashaad expense waa kharashaad qofku waxyaabaha uu bixiyo wuxuu doonayo wuxuu iskaga bixiyo waxa la maxay expense waa kharashaad marka way save up waxa way ururin ama kaydin lacag in la ururiyo oo la kaydiyo waxa la yaqaan maxay save up accumulation of money for a future use in mustaqbalka la isticmaalo lacagta mustaqbalka loo ururinayo baa la yiraahdaa maxay save up english marka maxay save up lacag ururin I wanted to save up some of my money yani some of my bill waana wax ka dhigto ama ka urursado qayb kamid ah lacagtayda marka waxa loo yaqaan save up lacag ururin tusaale it took me waxay u qaadatay months below to save up inaan ururiyo enough money lacag igu filan to go travel socdaal inaan galo lacag igu filan inaan helo waxay u qaadatay oon ururiyo muddo 6 bilooda it took me months to save up enough money to go to travel inaan socdaal galo lacag ku baxo oo igu filan waxaan ururiyo 6 bilood lacagta ururiyo she is saving up for a new bike waxay u urursanaysaa baaskiil cusub she is saving up for a new bike waxay u urursanaysaa maxay baaskiil cusub say u iibsatay lacagtaas u urursanaysaa way pay off marka waa qofku marka uu iska bixinayo deynta baa la yaqaanaa pay off bixin deyn iska bixin way to pay debts marka bracket waxa ku jira macna wax la bixinayo way to pay a debt in a full yani in iska bixiso deynta wax la yaqaan maxay to pay off baa la yaqaanaa to pay marka waa la bixinaya debt ama hada la bixinaya marka to give all wages to especially to pay in full in macna dadka shaqaalahana lacag markay muddo shaqeeyaan lacagta ay leeyihiin waa midna waa debt yani waa lacag ay leeyihiin dadka maxaa loo sameeyaa pay off baa loo sameeyaa si lacag kharashaadkooda loo siiyo taasna yani waa mid kala mid ah marka to pay off maxaa waa bixin deyn iska bixin baa la yaqaan example finally he had paid off the debts and could begin to save money yani u dambeyntii wuxuu iska bixiyay lacagta deynta ahayd wuxuuna awood u leeyahay maanta in lacag urursado lacag inuu save garayso ayuu awood u leeyahay finally he had paid off the debts and could begin to save money maanta wuxuu awood u leeyahay lacagtii urursado markuu deynta iska bixiyay way allocation qoondayn ama qoondo allocation marka maxaa waa qoonto ama qoondayn amount of money or resources assigned to particular purpose lacagaha ama kharashaadada ama ilaha waxyaaba lagu talagalay in wax gaar ah lagu bixiyo oo loo qoondeeyo baa la yiraahdaa maxay
allocation qondo allocation qondo tusaale mashruuc baad leedahay mashruucaas waxaad ugu tala gashay lacag intaas oo kun oo dollar inaad ku bixiso inta lacagta waxa la yiraahdaa allocated macnaha way income ama allocated money waa lacag la qoondeeyay loo qoondeeyay hawshaas tusaale they have already spent their allocation for this year way bixiyeen already yani qoondadoodii sanadkan already bixiyeen marka passive income waa lacagta kugu soo gasha adigoo aan shaqaynahayn yani shaqo active adigoo aan qabanayn lacagta kugu soo gasha tusaale guriga markaad kiraysato guriga markaad iibsato guriga aad iibsatay dib markaad usii iibiso lacagtaas wax hadda markaa kaaga baxaya yani wax markaas shaqo oo aad ka qabanaysa male mar haddaanad yaaniisan jirin lacag toosa ama shaqo toosa oo shaqo toosa oo aad qabanaysa lacagtaas waxay kusoo gelaysaa si passive income ahaana. Passive income is a money that you don't have to actively work for it. Inaad si joogta ama active uga shaqaysanayn. It comes from the something that already exists. Wax jira already bay kaaga imanaysaa. To continue to work for you. Waana mid kuu shaqaynaysa weliga oo soconaysa. taasaa loo yaqaana passive income waa waxaad maal gashanayso tan waad maal gashatay already tibidna lacagtii faa'iido ku socota taasoo loo yaqaana passive income